Laba dhacdo oo waaweyn ayaa usbuucani ka dhacay galbeedka Afrika gaar ahaan gobolka Saaxil, taas oo keentay in khariirada dhaqaale ee tii lacagaha gobolkaasi ay gashay isbeddel cusub. Dhinaca bulshada rayidka ah iyo dadweynaha oo kaashanaya aqoon-yahanada iyo dhaqaaleyahano ayaa ka dhawaajiyay in la joojiyo ku tiirsanaanta lacagta CFA Farankiga, taas oo uu leeyahay Faransiisku, halka dhanka kale ay labada awoodood ee waaweyn ee isbahaysiga dowladaha Saaxil iyo urur goboleedka dhaqaalaha ee ECOWAS ay ku hardamayaan isla markaana ay isku barbar socdaan laba jid oo kala duwan oo loo marayo madax-bannaanida dhaqaalaha ee qaaradda. Rabitaanka shacabka iyo astaanta taariikhiga ah ayaana ka socota gobolka Saaxil. Shirkii 14aad ee Foomka Dhaqaalaha ee gobolka ee ka dhacay magaalada Bamako usbuucii la soo dhaafay ee dalka Mali waxa uu ahaa mid astaan taariikhi u ah oo looga shirayo umuuro waaweyn oo hortobin u leh gobolka. Shirkan oo ay soo agaasintay hay'adda Coalition of African Alternatives uuna hogaaminayay Issa Kamara Sanku, waxa uu isku keenay in ka badan 300 oo ergo oo ka kala socotay gudaha iyo dibadda dalalka gobolka. Waxaana shirkan intii uu socday lagu xusay madaxweynihii hore ee dalka Mali, Modibo Keïta, oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Mali ee markaasi dalkiisa ka saaray lacagta CFA Farankiga markii ugu horreysay sanadkii 1962. Qodobada ugu xasaasisan ee shirkan ugu muhiimsan ee looga hadlay waxaa ka mid ahaa dib u gorgortanka deynta Afrika lagu xiray, isla markaana in Afrika ay ka baxdo silsiladda deynta ee lagu dhufaanay qaaradda, iyada oo soo ceshanaysa ganacsiyadeeda gaarka ah ee markaasi gaarka loo leeyahay. Sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlay ayaa ka mid ahaa in dowladaha Afrikaanka ay dib u helaan shirkadaha kheyraadka dabiiciga ah oo iyagu leeyihiin, kuwaas oo qaarkood ay maanta maamulaan dalalka reer galbeedku. Sidoo kale shirkan waxaa lagu lafaguray sidii loo sameyn lahaa lacag madax bannaan oo Afrika ay wada leedahay. Waxyaabaha kale ee hortebinta u lahaa shirkan ayaa ka mid ah in la tirtiro xuduudaha ka dhexeeya dalalka Afrikaanka ah si madax bannaan ay markaasi dadku ugu kala gooshaan qaaradda dhexdeeda. Sidoo kale waxaa la yidhi waa in qaaradda Afrika la waafajiyaa xeerarka dunida ee markaasi dhibaya ganacsiyada hoose, kuwaas oo la degaya dhaqaalaha. Ujeeddada iyo baaqa shirkan lagu qabtay magaalada Bamako ee dalka Mali ma uusan ahayn oo keliya sheeko diblomaasiyadeed, maadaama dalabyadan loo iibgeynayo madasha bulshada dunida ee World Social Forum ee magaalada Cotonou ee dalka Benin si cadaadis toos ah loogu saaro madaxda gobolka. Si loo fahmo sababta dhabta ah ee loola dirirayo lacagtan CFA Farankiga la yiraahdo, waa in aynu eegnaa qaabka ay u shaqeyso lacagtan iyo nidaamka CFA Farankiga ee la sameeyay markii ugu horreysay sanadkii 1945. Qiimaha lacagta CFA Farankiga waxa uu si toos ah ugu xiran yahay lacagta Yuurowga. Tanina waxa ay ka dhigan tahay in shuruudaha lacagta CFA Farankiga oo ay isticmaalaan 14 dal oo Afrikaan ahi ay ku xiran tahay bangiga dhexe ee qaaradda Yurub, halkii dib loogu soo celin lahaa beeraha Mali iyo weliba wax soo saarka uranium-ka ee Niger. Inkastoo Faransiisku uu joojiyay shuruudii ahayd in lacagtan 50% kaydka dibadda lagu shubo magaalada Paris, lagana saaray wakiiladii Faransiiska ee maamulka bangiga dhexe ee Yurub, haddana ku xirnaanta Yuurowga iyo weliba damaanadda Paris ma aysan ahayn mid wax beddeshay. Magacii ECO ee uu Macron markii hore soo jeediyana waxa uu noqday mid fashilmay. Ururada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Saaxil iyo ECOWAS maanta waa kuwa ku loolamaya galbeedka Afrika, iyaga oo markaasi laba waddo kala saaran, sidoo kalena leh aragtiyo kala duwan. Isbahaysiga dowladaha Saaxil ee la isku yiraahdo AES, habka astaanta iyo dhismaha hay'adaha Burkina Faso, Mali iyo weliba dalka Niger oo ka baxay ururka ECOWAS sanadkii 2023 kadib markii saddexdan dalba ay ka dhaceen afgembiyo kala duwan oo ay dalka kula wareegeen madax cusub. Waxa ay doorteen hannaan cusub oo ka duwan kan ay ku shaqeyso ururka ECOWAS. Waxa ay waddamadani la yimaadeen maalgashi iyo ra'samaal bilow ah oo ku dhowaad 500 oo bilyan oo lacagta CFA Farankiga ah, kaas oo ka dhigan markii dollar ahaan loo qiimeeyo 850 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Lacagtaas oo la doonayo inay noqoto ra'sumaal iyo mid markaasi kab u noqota dalalka gobolka, gaar ahaan dalalkan saddexda ah ee ku midoobay ururka AES. Waxa ay sameeyeen cudud ciidan oo wadajir ah iyo weliba dhaqaale midaysan iyo baasaboor biometric ah, kaas oo ay doonayaan inay ku midoobaan.
qorshaha dowladaha saaxil ay doonayaan inay ku sameeyaan lacagta cusub waxaa la yidhi waa in lagu xiro kaydadka dhabta ah ee dhulka ee macdanta laga helo, gaar ahaan dahabka Mali iyo weliba Burkina Faso iyo uraniumka dalka Niger, halkii lagu aamini lahaa damaanadda Yurub. Dhinaca kale, urur goboleedka ECOWAS ee hoos timaada hoggaanka cusub iyo madaxweynaha dalka Senegal Bassirou Diomaye Faye waxa ay dib ugu noqotay ballanqaadkii ahaa in lacagta ECO la bilaabo sanadka 2027, taas uu leeyahay Faransiisku. ECOWAS waxa ay ka guurtay shuruudihii ahaa in dhammaan 15 waddan ay hal mar buuxiyaan shuruudaha dhaqaale, waxayna u guureen nidaam kale oo ah in waddamada buuxiyay shuruudaha sida dalka Nigeria, Ghana amaba Senegal ay marka hore bilaabaan qorshaha. Haddaba, dhibaatooyinka dhaqaale oo ay leedahay in lacagta lagu xiro kheyraadka ama resource-ga markaasi dalku uu leeyahay, qorshahan ay bilaabeen dowladaha saaxil ee ah in lacagta lagu shubo laguna fariisiyo dahabka iyo uraniumka waxa uu leeyahay faa'iidooyin iyo weliba khataro waaweyn. Haddii aynu marka hore eegno faa'iidada, waxa ay burburinaysaa kalsooni darradii ka taagnayd lacagaha waddamada ay isaga midka yihiin ee wada isticmaala lacagta CFA Farankiga, taas oo inteeda badan lagu shubayo Bangiga Dhexe ee Qaaradda Yurub, maadaama kheyraadkoodu uu yahay mid ayaga u gaara isla markaana isku qiime ay yihiin. Haddii aynu eegno dhanka faa'iidada darrada, qiimaha dahabka ama uraniumka oo ah mid naadir ah sidoo kalena qaali ah, haddii qiimaha dahabku uu hoos u dhaco, waxaa sidoo kale hoos ugu dhici doono qiimaha lacagta cusub, taas oo keeni karta hoos u dhac maaliyadeed oo ku yimaada hantida maguurtada ah ee dadka caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, habka iyo hanaanka cusub ee dowladaha saaxil ay doonayaan isla markaana ay u dhisayaan hay'adahooda maaliyadeed waxa uu u muuqdaa mid ka dhab ah oo ka awood badan ballanqaadyadii 20 sano ka soo socday urur goboleedka ECOWAS. Sanadaha 2026 iyo weliba 27-kana waxa ay noqonayaan xilligii lagu kala ogaan lahaa in Afrika ay leedahay awood iyadu ay ku go'aamiso qiimaheeda lacageed iyo weliba mustaqbalkeeda dhaqaale. Haddaba daawade, dalal badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo aan maanta lahayn lacagaha rasmiga ah ee dalka laga isticmaalo ee kaashka ah oo maanta ku tiirsan lacagaha elektarooniga ah, waxa ay wajihi doonaan dhibaatooyin dhaqaale oo kala duwan, maadaama qaaradda dhexdeeda ay ka bilaabatay loolan kala duwan isla markaana lagu tartamayo lacagta laga isticmaalayo gudaha, iyada oo dalalka galbeedka Afrika iyo guud ahaan dalalka kale ee qaaraddana maanta ay go'aaminayaan masiirkooda dhaqaale iyo weliba lacagaha ay isticmaali doonaan mustaqbalka dhow iyo kan fog. Sidoo kale, qaaradda Afrika waxa ay noqonaysaa meel ay ku loolamayaan quwadaha caalamka, iyada oo markaasi dalal badan oo hormuud u yahay dalka Shiinuhu maanta ay doonayaan inay lacagta doolarka ee maanta Soomaaliya ay ku tiirsan tahay ay ka saaraan qaaradda, sidoo kalena ay ku soo wareejiyaan lacagta loo yaqaano BRICS, taas oo ay ku midoobeen dhowr dal oo waaweyn. Haddaba daawada, aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose. Sidee bay u saameyn doontaa dalalka qaaradda Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, lacagaha isbedelada kala duwan ee ka socda guud ahaan qaaradda? Haddaba daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay, channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan kusoo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaallo xiiso badan.